markaasuu yiri abaayo sida aan ku jeclahay yiri hiblaayo sida aan ku jeclahay wallaahi midka naga sareeyana oo ogi hoyrano gooba ismooday ninka la sheegay inuu asaga yahay markaasuu inta hanqalka soo taago dhuunta la soo baxo yiri kan sariirta hoosteeda ku jira ma la sheegay miya aniga la ma la sheegay kii sariirta hoosteeda ku baxay yiri kan armaajada ku jira ma la sheegay miya aniga la ma la sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim kul wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Koobis oo ah barnaamij toddobaadla barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah Cabdullaahi Macalin Axmed timacade ugu horreyn ku soo dhaweynayaa barnaamijka Koobis oo ku soo dhaweynayaa waan ku dhawaa barnaamijka Koobis idaacadda aad iyo aad ma u mahadsan tahay barnaamijka Koobis waxaan kaga hadlnaa sheekooyin badan mawduuca sheekadaada iyo toddobaadkan mawduuca sheekadeeda ee toddobaadkan waxa weeye sirnaageed laga masal gaaro waan gartay dad badan waxa way sirnaageed laga masal gaar markay maqlaan wax badan baa ku soo dhacaya waa sax horta sheekooyinka sirnaageed laga masal gaaro way badan yihiin laakiin tani waa mid kamid ah maamaadaas ama ciwaankaas sirnaageed laga masal gaaro marka qaar badanna way jiraan laakiin midaanan galabta soo qabanayna hay sheekadan ciwaankeedu yahay sirnaageed laga masal gaaro haddii aan uga dhaco daawadayaasha dhegeystayaasha waxaa jiray magaalo ka mid a magaalooyinka dalkeenna ayaa waxaa ku noolaan jiray 3 wiil oo dhalinyaro ah 3 wiilna goobayaal waay 3 goobo waay marka waxay ku tashadeen waa saaxiibo waxay ku tashadeen maadaama aanay shaqaysan karin inay dadka gabdhaha iyo dumarka adeega looga soo diro suuqyada iyo dukaamada waxaa inay wax ka shaafteeyaan marka sidii u ahaayeen oo ugu noolaayeen ayaa magaaladii hal mar qaylis waxa la yiri war 3daas goobe naftiya noo keeneen yaa naga dacwoona yaa naga qabta taliyii saldhiga loo tagay markaas la yiri arintaas aan haysata 3daas goobe ayaan maaragtay khaatir billaah ka taagana sida darteed waayo yiri wuxuu la hadlay dadweynaha ayuu la hadlay wuxuu ku yiri 3daas goobe qofkii keena abaalmarin ayaa la siinayaa markii ogeysiiskaas oo magaaladii galay ayaga laftirkooda ay dhagta ku dhufteen xogaa waxay galeen wax la yiraahdo attention way is ururiyeen laakiin in lagu raad joogo waa ogyihiin mid ka mid ah askartii stationka oo booliiska ayaa islaan uu qabay u sheegay markuu u sheegay ay wuxuu ku yiri arintaas jirta abaalmarintaas markaasay tiri anaa soo xirigelinaya nimankaas marka sidaas ayaa diilo ku ran yahay ay waxay bilowday galabtii dambe inay soo baxdo oo ay magaalada soo aado soo labisatay 3dii goobe mid kamid ay aragtay waa u sheekaysay waxay tiri niyow inaan kula sheekaysan rabaa qof waxaan ahay qurbaawi oo qurbaada ka yimid anahay raggan markaan fiirfiiriyana adinka noociina maaragtay ayaanba ka helay tiri sidaa darteed gurigeygaan ku soo tusaa oo ku sheekaynaya waqti fiican aan ku siinayaa waa soo waday markay soo kaxaysay isagoo aad iyo aad ugu maaragtay niyadsan ugu faraxsan oo xaragoonaya oo isdhaaya wallahi maanta ayay gurigii tusay waxay tiri gurigan ayaan leeyahay ayay tiri biri 2 saac ii imaabay tiri waayo ku yiri bis waa iska baxay gabadhii labiskii inta iska bedeshay ayay haddana magaalada gasho goobii kale haddana aragtay kii kale haddana sidoo kale u soo ballamay gurigay keentay guriga markay keentay oo tusay waxay tiri biri 3 saac ii imaaw markaas haddana labiska iska bedesho inta shareerkeeda qaadatay ayay kii 3aad raadisay kii 3aad aragtay waa soo waday gurigay keentay waa tustay biri 4 saac ii imaaw tiri 3 saac isku xiga ayay ballamisay habeennimadii odayga wuxuu ku tiri nimanka waa ballansan yihiin adiga 5 saac ka hor ma imaan kartid 5 saac ka hor waxa isku imaanay gurigan adoo askartaada wata katiinadaada wata laymo waagu markuu bariyay gooba 1 iyo gooba 2 gooba 3 aan bixinaynaa marka gooba waa istoosiyay waa shanleystay waa ishabeeyay waa soo labistay wuxuu soo aaday gurigii soo abaaray guriga markuu imid soo gargaraacay yaa waayo war hebel waayo ha si waxa loo soo dhaweeyay kalgacala ilaa ninka dagi iyo ninka dili iyo ninka daban u qooleyso waa la soo kala daaday ayuusan ka didina marka waa soo kala daadisay waa soo laantay marxaba gacmaha laga shumiyay waa la soo dhaweeyay kursiga la fariisiyay soo dhawaaleer ma sha Allah waa timid ballanta online ku timid aad iyo aad waa fiican tahay cabaar markii loo sheekeeyo lacag fariistay ayay waxay tiri mashaahan ku dalbaa mise biyo qabow ku dalbaa maxaan ku soo qabtaa biyaha qabow iyo soo qabo isagoo markaas biyihii intii loo maqnaa oo biyihii loo keenay
oo faraxsan isla maanta si fiican lagu sheekayna oo lagu soo dhaweynaa wala soo dhaweeyay xiisadii ka dhacday gambaleelka ku dhacay gooba tu soo gargaraacay gooba tu markuu soo gargaraacay tir Allah yaa waay qofkan saacada noo soo gargaraacay xageen ku geeya guriga dhanna waxa taala hal armaajo iyo hal sariir taal sariirta caasha dheer lii jiray guriga marka meesha irida laga soo galo korkeeda meela ayaa safiito ka furanta meeshaas oo kora oo gudaha ah markaas wuxuu yiri igeli meeshaas waa naf adag yahay naf adag yahay meeshii qaaday koray gelisay meesha soo ku jiro siir bal qofka soo galaya afiiris gooba tu soo galay albaabkii laga furay wala soo dhaweeyay sidoo kale kan ma hadli karo wuxuu isleeyahay malaha inta salaamo maarta iska bixi doona ha sidoo kale loo soo dhaweeyay waa loo sheekeeyay isagii wuxuu leeyahay war ana inkaarana haysato meeshan tagaba nimankan saaxiibada iyo goobayaasha waa igula jiraan maxay daba dhigay marka wuxuu yiri hadda waxaan ka cabsaa in kii saddexaad yimaado yiri saasan ka cabsaa yiri bal ogaada taas sidii loogu sheekeynaa isagina shaah loo dalbay markaas shaah isagoo cabaya kii kale soo gargaraacay markaas xagaan ku geeyaa sariirta hoosteeda galay yiri sariirta hoosteeda la geliyay kii kale la soo dhaweeyay isagina waa cabaara loo sheegay xiisadii odayga soo gargaraacay armaajadan galay yiri armaajada la geliyay armaajada markii la geliyay ninkii markuu soo galay oo irida horteeda ay uga hartagtay meesha ku aadan ninkii meesha ku jiray ayuu odagu taagan yahay markaas yiri abaayo sida aan ku jeclahay yiri hiblaayo sida aan ku jeclahay wallahi midka naga sareeyana oo ogi hoyrano marka kiya ismooday gooba ismooday ninka la sheegay inuu asaga yahay markaas inta hanqalka soo taago dhuunta la soo baxo yiri kan sariirta hoosteeda ku jira ma la sheegay miya aniga la ma la sheegay kii sariirta hoosteeda ku baxay yiri kan armaajada ku jira ma la sheegay miya aniga la ma la sheegay saddexdoodii ba meesha la soo dega kan soo bax kan soo yimaadeen islaantii oo dharbaaxay wuxuu yiri waa maxay yiri meeshan sheekadana maxaa waa yiri waxaan waa fahmi laa yiri firin biyo yeeriyay laba askar oo banaanka ku taagan oo yeeray markaas yiri isugu ka xirxira laba la isugu xiray laba goobe iyo goobe gabadha wala isku xiray saac ay qabta stationka la isla geeyay station markii laga yiri taliye oo kuwaana yiri nimankii maaragtay ka bacdina waa la xiray gabadhii iyadana gabdhaha loo diray oobiya laga qoray waxba laga qorqoray markaas la yiri xabsi daa'ina tihin gabadhii waxa la yiri abaalmarintaada hoo sidii abaalmarin lagu siiyay lacaga la siiyay markaas soo baxday gurigeedii timid odagii faraxsan iyadii faraxsan kuweena waa la xiray xabsi daa'ina ba loo qoraba magaalada dhameed waa ka nasataba ma garatay sidaas hadii la qoray sheekadaas iyadana maaragtay runtii waa sheeko cajiiba dabcan ujeedka sheekadaada marka maxay tahay ciwaankeedu waxa sida maqleysay sir naageed lama sal gaaro saddexdaas nin halkaas naaga ayaa soo xirgelisay magaaladu waa ka nasatay ummaddu waa ka nasatay marka waxa waaye hadda dulma samayso dabcan adoo kugu soo noqonaya marka waxa waaye kullama mar walba aduu dadka dhibto marka dambe ilaahay waa marka ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yumli adhalim ظالمك إلهي وأسجى حتى إذا أخذه لم يفلته مركا وقبتنا مسي دايو مركا إن أخذه أليم شديد واي مركا إلهي سبحانه وتعالى إن لو غبقه ومديسا أو لقى مارتي لو نصيحي أيا لو باهي انت حسن مدى وسوي جيدنا يا بارك aad baad mahadsantahay Cabdullaahi dabcan oo marti ugu ah barnaamijka Koobis daawadayaal guud ahaan barnaamijka Koobis waa naga inta toddobaadkiisa xiga intaan ku kulmi doono waa anigu Hani Maxamed Cabdo idin leh sidaas iyo nabadgelyo fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka aad jeceshahay Premier Wallet